bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhegaystayaal daawadayaal, halkani waa Udgoon Media oo aad kala socon kartaan channelka YouTube-ka ee Udgoon Media iyo Facebook page-keena udgoonwood.com. waa maalinimo sabti ah, taariikhdana ay ku beegan tahay 7 bisha afaraad ee 2018. kuna soo dhowaada barnaamijkeennii waxbarashada oo hadahan oo kale aad oga barateen Udgoon Media. waxaa barnaamijka alaaba idin soo diyaariya halkaana idinkaga tabiya aniga oo ah Qaasim Nuur Maxamed Aaja. dhegaystayaal, barnaamijkeena waxbarashada qaybtiisa 12aad maanta waxaan ooga hadlaynaa maxaad kala socotaa marxaladihii ay soo martay qoridda farta Soomaaliya. haddaba dhegaystayaal, marka aan ka hadlayno farta Soomaaliya waxaa jira waddo dheer oo ay soo martay qoridda farta Soomaaliya, iyada oo soo bilaabatay 1950-yadii sida ay aqoon-yahanada badankooda isku raacsan yihiin. balse waxaa jira warbixino kale oo dheeraad ah sheegayana in ay soo bilaabatay 1830-yadii, qaar kalena waxay leeyihiin 1930-yadii. balse waxaa la qiray oo caddeyn la hubana lagu hayaa in Sheekh Uways Al-Qaadiri warqad uu faafiyey 1912 ay ku qorneyd xuruuf carabi ah iyo afka Soomaaliyeed ee loo yaqaano Maayda, amaba midka ay ku hadlaan raxaweynta, begediga, geladiga iyo qaybo kale oo ka mid ah qowmiyadaha Soomaaliyeed ee degan koonfurta Soomaaliya. balse si kastaba ha ahaatee, is-afgaran waa ka dhex jiray Soomaalida dartii aysan u suuragelin in la qoro farta Soomaaliya xilligaasi.
haddaba doodihii tirada badnaa ee qoristii farta afka Soomaaliya oo aan dhammaanin laguna guulaysanin xitaa xilligii xornimada kadib ee labadii dowladood oo rayidka ahaa ayaa markii dambe soo afjaridooda si la yaab leh ugu guulaysatay dowladdii militariga ahayd iyo xisbigeedii oo lagu magacaabi jiray xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed ee uu hogaaminayay Allah u naxariistee Generaal Maxamed Siyaad Barre. haddaba hirgelinta qoridda farta si ay u hergasho loona gubaabiyo dadweynaha ayaa waxaa jiray in ay ka qayb qaateen qaybo badan oo ka mid ah ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta fanka Soomaaliyeed oo u soo saaray heeso guwaabo ah, gabayo iyo wixii la mid ah. heesahaasna waxaa ka mid ahaa Akabarano afka Soomaaliyeed Akabarano afka Soomaaliyeed Akabarano afka Soomaaliyeed Akabarano afka Soomaaliyeed waayahay dhegeystayaal, heestaasi waxay ka mid ahayd heesihii xilligaasi lagu guubaabinayay bulshada Soomaaliyeed in ay barato qorideeda amaba farteeda Soomaaliya. waxaa kaloo jira heeso aad u fara badan inkastoo aan idil ahaan soo qaadan karin, balse waxaan isu dayeynaa in qaybo ka mid ah aan qayb ka taataabanno. waxaa kaloo ka mid ah heesatan ee hadda soo socota. waayahay dhambaal baa la gaarsiinayaa dhegeystayaal. haddaba intaasi kuma eka heesihii aadka u macaanaa ee bulshada Soomaaliyeed lagu dhiirigelinayay si ay u bartaan ama ay u qoraan fartooda Soomaaliya.
waxaana isku dabridkaasi iyo howlahaasi aadka u adkaa ka qayb qaadanayay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyadoo markaasi uu hogaaminayay madaxweynihii Allah u naxariistay xiligaasi Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo xisbigiisii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed waxaa kaloo kamid ahaa heesihii xiligaasi ee dadka af Soomaaliga lagu fahamsiinayay heestatan ee hadda soo socota baada waxaa la moodaa barbarka midigta laba goobo bidixdana far lagu beegay taadu waxaa la moodaa ama lagu tilmaamaa iyada laba garley taagan jaadu waxaa la moodaa lool bidix u jeedo afka jeeda xagga cirka dhibic laga joojiyo xaadu waaba laanqeer xariijimeys dhaafo tuugna kaama xadi karo daadu qaanso weeyaan docda bidix u jeede raada dayaxa ka cadde raadu way rogrogantaa sida raadka gorayada waana raafi dheer tahay saada waxaad ku garataa dhaxdu sariiq yar weeyaan surkeediyo salkeedu midba gees u seexda gaadu waa garaanaan afka la isu geyno qaryar hoosta kulaho iskodaysa weeyaan caada waxaad ku garataa bisho caawo koowo soo caana shubato cawadharda weeyaani faada garo oo ii sheega faada waxa la moodaa ulaan si fuq buureyn oo fiican oo bakoorada farna dhexday ku leedahay qaadu waa boqol xidhanoo kuntunta hoosta qabata qaadu waa kabaalun kulma kala yarjeeda dhexda kaga kulmaane miyaa laguba ka haya laadu lid yar weeyo salku midug u leexdee ma luntee ha moogaanin aan maqlee ma ii sheeg maadu way melmelantaa xagla miiran weeyaan madax laba daryaanliyo maja saddex leedahay nacadu way noqnoqotaa saddex nabar islaabtaa waada waxaa la moodaa waaba labada geesood barma lagaga joojiyey xaada laba kabaalo ishareerayaallo dhexda xarig isu hayo hubaalaa la moodaa yaaduna heensaraar weeye hamsaduna cidiyar weeye aada baliisha aadu laba xariiq oo afka laysu geeyo dhexda oodan weeye eeda waxaad ku garataa afka midig u jeediyo saddexdeeda ilig iidu alif yar weeye dhibicdana ha ka ilaawi oodu gooba weeyaan uuda unuga saabka usha ugu dhaxaysay u egta sa iyo ha la isku daray waa sha da iyo ha la isku darayna waa dha ka iyo ha la isku darayna waa ha heesihii xiligaasi abwaanada ay soo saarayeen kuma ekeen oo kaliya inay ka hadlayeen farta oo kaliya balse waxaa kaloo dadweynaha la ogeysiinayay si ay u ogaadaan ama ay u qiimeeyaan qiimaha uu macallinku leeyahay heesahaasina waxaa ka mid ahaa sida tan maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanta u maxayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanta u maxayne mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay sidoo kale waxaa jiray heeso kale oo ayagana ka turjumayay qiimaha waxbarashadu ay leedahay iyo in dadweynaha lagu ballaminayo in la wada gaarsiiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed heestaasi waxayna u dhacaysay sida tan bilowgiisii hore wuxuu baayi qabay
sidoo kale waxaa jiray heeso ayagana lagu tusayay dadweynaha Soomaaliyeed in ay ogaadaan aqoontu in ay tahay iftiin, aqoon la'aantuna ay tahay iftiin la'aan. heesihii markaasi lagu guwaabiyay xilligaasna waxaa ka mid ahaa haddana waxaan ku soo afmeeraynaa qaybta heesaha qiyaasta ugu dambeysay oo ayadana dadweynaha loogu sheegayay in ay wax bartaan si ay horumar u gaaraan. heestaasina waxay ahayd sidan: waxbartaan barwaaqo gaarne ninkii baar fariisto beeniya sheeka baafinayo barqadii ninkii baar fariisto beeniya sheeka baafinayo gajiya u bakhtiya basaasto duntiisu ka boodiyo bulaanye gajiya u bakhtiya basaasto dantiisu ka boodiyo bulaanye waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne. waxaan filayaa ilaa iyo iminka heestaasi waxay jilaysaa amaba ayna tusaysaa in aan u baahannahay in aan wax baranno si aan u noqonno dad horumar gaara. haddaba intaa kadib dhegaystayaal, khubradii guddiga afka Soomaaliga qorshihiisa loo xilsaaray markay soo bandhigeen 18 farood oo kala duwanaa ee isugu jiray 11 farood oo cusub, 4 farood oo Carabi ah iyo 3 farood oo Laatiini ah, ayaa haddana doodo kale ka bilowdeen sidii looga qaadan lahaa mid ka mid ah farahaasi. maxaa yeelay qola kasta waxay wadatay taageero u gaar ah, waxayna ku dadaalaysay qayb waliba teeda inay hergasho. taasina waxay sababtay in magaalooyinka qaar ay banaanbaxyo amaba mudaaharaadyo ka dhaceen, iyadoo shacabku uu aad uga soo horjeeday farta Laatiinka. mudaaharaadyadaasi waxaa loogu magac daray amaba haldhig u ahaa laadiin, oo micnaheedu yahay farta Laatiin haddaan qaadanno diin la'aan ayaanu noqonaynaa. haddaba taasi ayaa waxay sababtay in golaha sare ee kacaanka ay doodaasi ku kala qaybsamaan, waxayna isku haysteen aan Carabiga qaadano iyo aan Laatiinka qaadano, iyada oo ugu dambayntiina ay dowladdu qaadatay xuruufta Laatiinka ah ee haddaba shaqaysa.
haddaba sanad guuradii saddexaad ee kacaanka ayaa bishii Oktoobar 21-keedii sanadkii 1972 waxay dawladdu sii sheegtay in la qori doono farta afka Soomaaliga laga bilaabo sanadka soo socda ee noqon doona 1973 waxayna sanadkii 1973 bishii koowaad dawladdu ku baaqday in la bilaabo hirgelinta farta rasmiga ah ee Soomaaliga. dhegeysto sidaan ka war hayno arin walibaahi waxay u baahan tahay nidaam iyo hab loo hirgeliyo. haddaba sidii loo hirgelin lahaa qoridda farta dawladdu waxay isticmaashay 3 waji oo karti iyo maamul wanaagba ka muuqato waxayna kala ahaayeen marka koowaad waxaa la amray in shaqaalaha dawladda sare ay muddo 3 maalmood ah ku bartaan qorista iyo aqrinta afka Soomaaliya inkastoo markii dambe loo kordhiyay muddo 3 bilood oo kale si ay u fahmaan farta si wanaagsan. markii labaad waxaa la amray in barashada farta laga hirgeliyo iskuulaadka magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka. taasina waxay qaadatay muddo 1 sano ah waana lagu guuleystay. markii saddexaadna waxaa la abaabulay olole loogu magac daray ololihii baridda farta reer miyiga. waa ololihii ugu dhibka iyo qarashka badnaa uguna muddada dheeraa intii farta Soomaaliga la hirgelinayay. waxaa lagu guuleystay in tuulo kasta iyo reer meel deganba macallin la gaarsiiyo. haddaba habkaasi maamul wanaaga iyo maskaxdu ku dheehan tahay ayaa qoris iyo aqrinta farta Soomaaliya loogu wada baahiyay waddanka oo dhan.
haddaba barnaamijka horumarinta hirgelinta farta Soomaaliya ee socday intii u dhaxaysay 1972 ilaa iyo 1975 waxaa ka qayb qaatay shaqaalaha dowladda dhammaantood, saraakiisha ciidamada, fanaaniinta iyo ardayda heerka jaamacadaha. dadkaasi oo wadartoodu ahayd 28,000 oo qofood. markaasi kadib dadka Soomaaliyeed waxay noqdeen 55% kuwa wax qora waxna aqriya. ugu dambeyntiina howlahaasi dhaqangelintooda iyo habsamida maamul wanaaga ku dheehan markuu arkay caalamku ayaa dadka Soomaaliyeed magac iyo maamuusba dunida oo dhan ka heleen. luqadda afka Soomaaliguna waxaa loo aqoonsaday inay tahay luqadda saddexaad ee qaaradda Afrika. Carabiga iyo Hawsaha oo kala ahaa labada luqadood koowaad iyo labaad. waxaa alla mahadiis ah in maanta iyadoo tifaftiran aan adduunka kaga faanayno cid kasta oo hirgelinteeda ka soo qayb qaadatayna adduun iyo aakhiraba ay ku abaal mudan yihiin. dhegaystayaal waxaa intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkeennii waxbarashada qaybtiisii 12aad oo maanta aan ku soo qaadannay marxaladdii ay soo martay qoridda afka Soomaaliya. waxaa barnaamijkan mar waliba ahi idin soo diyaariyo idinna soo tebiyaa aniga oo ah Qaasim Nuur Maxamed. imankan waa Bahda Udgoon Media oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.